Barakhad Jaamac Batoon afhayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta qaybo kamid ah warfidiyeenada kula hadlay hotel cafe ee magaalada Burco ayaa waxa uu si weyn uga hadlay dacwad uu sheegay inuu maayirka Hargeysa ka gudbinayo mas'uuliyiinta ugu sareysa xisbiyada mucaaradka. Afhayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ku tilmaamay wax laga xumaado dacwadda uu sheegay in maayirka Hargeysa inuu ka gudbinayo xisbiyada mucaaradka. Waxaan uu soo jeediyay maayirka Hargeysa dhaliilihii ugu cuslaa isagoo sheegay inaanu sifo sharciya ku fadhiyin kursiga uu hogaamiyaha ka yahay maayirka Hargeysa waana kan afhayeenku arrimahaasi ka hadlaya. Arrinta ku saabsan dacwadda su'aasha iga weydiinaysay ahayd xisbiyada mucaaradka ah mas'uuliyiintooda in dacwad ay ka gudbinayo nin la yiraahdo Solteeko oo Hargeysa jooga. horta Solteeko isagoo ayaa buu dacwad gudbinaya su'aasha in loo waadaxiyo bulshada Soomaaliland ay tahay waa taa. Solteeko waa shakhsi waana shicib sharciyad maayir uu ku sheegan karayaana ma jirto cid ay tahay in dacwad laga gudbiyo oo maxkamad la saarana waa isaga. maxaan sidaa u leeyahay dalka xeer buu leeyahay dastuur buu leeyahay qawaaniin baa taala. muddadii golaha deegaanka Hargeysa ninkaasi hogaaminayay 5 sano 2 sano saayida oo qeyr sharciya ayuu cashuurta ummadana ku qaataa kursiga uu ku fadhiyaa. saddex mid baa qofku maayirnimo ku sheegan karaya sharciga marka laga hadlayo. kow waa inuu yahay elected person qof la soo doortay oo ku yimid rabitaan shacab. laba waa inuu ku soo baxay digreeta madaxweyne oo legitimacy-ga sharci cidda dalka leh oo madaxweynaha la doortay waxna magacaabi karay waxna eeri karay. saddex waa inuu muddo kordhin ku jooga mar hadduu mandate-kiisii sharci dhacay golayaasha dalka ee sharci dejintu waa inuu muddo kordhin siiyaan. saddexda bay idinkaan idin weydiinayaa shacabka Soomaaliland baan weydiinayaa saddexda midnaba ku fadhiya waa maya. marka there is no way uu oran karayo maayir baan horta waa shicib ninkani. qodobka labaad markaan leeyahay isagay tahay in maxkamad la saaro oo maxkamaddu ku hanjabayo ay tahay inay xukunto waa isaga. maxaan unu leeyahay muddo 7 sanadooda ayuu caasimadda maayirkeeda sheeganayay ninkaasi. tusaalaha ugu basiisan ee ummadda Soomaaliland arki karaysa waxa weeyaan marka wax kale laga yimaado bilicda magaalada Berbera iyo boorka bartanka magaalada Hargeysa dhex yaal. wuxuu maxkamadda ku mudanaya waxa weeyaan dantii guud ee ummadda magaalada Hargeysa ee maayirkeeda uu sheeganayay meel maanta dan guuda baloor bartanka Hargeysa ama baalaheeda ku yaala oo masaajid laga dhisaa kuma yaalo oo dhul dan guuda garoonku badhan yarada looga dhisaa kuma yaalo dhul dan guuda meel xanaano ama cusbitaal laga dhisaa kuma yaalo meel iskuul dan yarta looga dhisaa kuma yaalo bartanka magaalada marka laga yimaado banaanka magaaladan laga helay oo mas'uuliyad dar ay hadin lagu maxkamadeeyo. tiraba intuu madaxweyne Muuse talada dalka hayay 2 jeer baa hanti dhowrku xilay dawladda hoose oo qof uu ku rogoodo ummadda u soo tabinaysan waa musuqmaasuqa halakay dawladda hoose. xafiisku ku shaqeeya waa ku Ingiriisku dhisay 1950 2020 waynu marayna oo mas'uuliyad darrada iyo awood darrada maamulay haysatay ku toosaysa. shaqaalihiisu 3 bilood mushahar ma qaataan waqtay tahay in lagu maxkamadeeyo isaga. magaalada Hargeysa oo caasimadii qaranka ah wadooyinkeeda markaad marayso hogog baa la maraya hogog odogtiina roobkii u dambeeyay maatidu qaaday ee daadka u dhimanayay ee madaxweynuhu soo kormeeriyay imisa ku dhintay tirada aad garanaysaa. marka maxkamaddu ku hanjabaya annagu diyaar baan u nahay waanu tagi doonaa ama isaga sharcigu uu waraabin doonaayo ciqaab kala mudan doona oo sharci xora oo xalaal ah dalku heli doonaayo garsoorku sharaftiisu ilaashan doona ama waxa cadaan doonta garsoorku ku hanjabaya mid isagu gacanta ku haysta inuu noqon doono waxa xidhaalaha maanta garsoorka hor yaal
geesta kale afhayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani barkhad jaamac batuun ayaa wax laga xumaado waxa uu ku tilmaamay xadhigga xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee ucud maxamuud cali saleebaan ramaax. arrinta ramaaxda waanigii la hadlay honkebel t v waanigii sheegay baasha ma haysta baan idhi anaa sheegay baasha waa kii yidhi anugu ma haystee waan saamaxaadan wax ku haysta dee tiimkii baa haysta dee aanu sheegaynay wakaade weli ramaax xidhan bal wuxuu ku xidhan yahay bal garsoorka tagoo weydiiya ninkii dacwadda lahayd inuu ku soo oogay ee uu la xiiqsanaa ninka c i d da haystaa uu la bararaqlaynayay waka baasha yidhi adeer ma haystee adigii baashe ka c i d da haysta oo ku eedeynaya baashee bal cidda haysata adeer soo sheeg ila adigii dee eed u waxaynaya qof bila'aadana oo xuquuq dastuuriya leh oo madax xisbiya oo dastuurku u damaanad qaaday inuu qowl iyo qoraalba ku dhaliili karayo xukuumadda oo xeerfoodhiina haysta oo shahaadow haysta oo inta sidii xoolihii layska xidhay meel isaga jira dunidana kamay dhicin dalkana 30 sano oo xukuumadda ka soo talinaya kamay dhicin tan baa u koowa. ugu dambeyntiina afhayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani barkhad jaamac batuun waxa uu ka hadlay dacwad la sheegay in qoyska madaxweynuhu uu ka gudbinayo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud injineer faysal cali waraabe. arrinta kale ee mucjisada ah iyaduna waxa weeyaan faysal cali waraabe ayaa dacwad loo haystaa baa layidhi oo maxkamadda isagana waaranu yaalla bal iyadana waynu eegi doonaa ama somalilantii quruxda badneed ee cadaaladda iyo sinnaantii horumarka lagu naaloonayay baa suuro geli ama xukuumaddani wax kale ay saadaalinaysaa iyadunbay ku noqon doontaa. waa maxamed suldaan muuqaalaliyaha telefishinka Ariel Burco.